Kooxda horyaalka Faransiiska ayaa la ciyaari doonta kooxda horyaalka England fiidnimada Sabtida magaalada Budapest marka ay PSG ay wajahdo Arsenal finalka Champions League 2026. Kooxda Luis Enrique ayaa ah kooxda difaacaneysa koobka, waxayna doonayaan inay noqdaan kooxdii labaad ee taariikhda ku guuleysatay Champions League 2 sano oo xiriir ah tan iyo markii tartanka dib loo magacaabay sanadkii 1992 kadib Real Madrid oo sidaas sameysay sanadihii 2016 ilaa 2018. Kadib wareeg adag oo league phase ah, PSG waxay si weyn u soo bandhigtay awoodooda wareegga bug-baxa iyagoo ka gudbay kooxaha Monaco, Chelsea, Liverpool iyo Bayern Munich si ay u gaaraan final labaad oo xiriir ah, iyagoo Bayern ku garaacay guud ahaan 2 lugood 6 semi-finalka. Dhanka kalena Arsenal way wada badiyeen dhammaan 8 kulan ee league phase-ka ka hor inta aysan ka badin kooxaha Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon iyo Atletico Madrid wareegyada bug-baxa, iyagoo Atletico ka badiyay guud ahaan 2 gool iyo gool semi-finalka. Mikel Arteta ayaa Arsenal ku hogaamiyay finaalkoodii ugu horeeyay ee Champions League tan iyo 2006, waxayna gali doonaan taariikhda haddii ay ku guuleystaan 2 koob oo isku mar ah oo ah Premier League iyo Champions League, wax aan horey ugu dhicin kooxda waqooyiga London. Finalka 2026 wuxuu ballanqaadayaa kulan aad u xiiso badan oo dhex mara 2 kooxood oo heer sare ah oo leh qaar ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican Yurub. Halkan waxaynu isku dayi doonaa inaan soo qaadano xulashada isku darka 11 ciyaaryahan ugu fiican kooxaha PSG iyo Arsenal. Goolhayaha waxaynu ka soo qaadanaynaa goolkiibarka Arsenal David Raya, goolhayaha Safinos oo kala wareegay lambarka 1 goolhaye Nicolas qaybtii labaad ee xilli ciyaareedka isagoo PSG ka caawiyay safarkooda Champions League ay ku guuleysiga Ligue 1, laakiin David Raya ayaa heer kala jooga marka loo eego goolhayaha Ruuska. Goolhayaha Arsenal ayaa sameeyay xilli ciyaareed cajiib ah isagoo 19 kulan shabaqiisa ilaashaday 37 kulan oo Premier League ah, taasoo siisay Golden Glove-kiisii saddexaad 4 xilli ciyaareed gudahood. Wuxuu sidoo kale sameeyay 9 kulan aan wax gool ah laga dhalin oo Champions League ah, isagoo leh boqolkiiba badbaadin gaaraysa 89.2%. Halkan waxayna ka soo qaadanaynaa difaaca midig Achraf Hakimi. Achraf Hakimi waxaa loo arkaa mid ka mid ah daafacyada weerarka ugu fiican dunida, wuxuuna si fudud boos ugu heli karaa koox kasta sababtoo ah xawaarihiisa sare, orodkiisa xoogga leh iyo awoodiisa weerarka. Isagoo sameeyay in ka badan 70 gool iyo caawin 206 kulan uu u ciyaaray PSG, Hakimi wuxuu bixiyay 6 caawin Champions League xilli ciyaareedkan. Kaliya Michael Olise iyo Vinicius Junior ayaa ka badan oo leh 8. 4 ka mid ah caawimihiisa waxay yimaadeen wareegyada bug-baxa. Julian Timber ayaa si fiican ugu ciyaaray booska difaaca midig ee Arsenal, waxaana la dhihi karaa difaac ahaan wuu ka adag yahay Hakimi, laakiin xiddiga Morocco ayaa helay booska isku darka kooxda. Difaaca dhexna waxayna soo qaadanaynaa William Saliba ayaa ka hormaray kabtanka PSG Marquinhos si boos ugu helo kooxda isku dhafka ah. Saliba wuxuu sii kordhiyay heerkiisa wanaagsan uu ka ciyaarayo hoosta Arteta, isagoo noqday mid ka mid ah daafacyada dhexe ee kubadda si fiican u dhisa dunida. Saliba wuxuu laf-dhabarka u ahaa difaaca adag ee Arsenal oo kaliya 6 gool laga dhaliyay 14 kulan Champions League xilli ciyaareedkan. Arsenal waxay sidoo kale shabaqooda ilaasheen 53.49 kulan uu Faransiisku u ciyaaray dhammaan tartamada. Difaaca dhexna waxaynu soo qaadanaynaa Gabriel Magalhaes. Saliba kaligiis ma qaadan karo ammaanta difaaca adag ee Arsenal sababtoo ah Gabriel Magalhaes ayaa sidoo kale muhiim weyn u ahaa kooxda Arteta, isagoo sidoo kale khatar weyn ku ahaa kubadaha taagan, wuxuuna sameeyay 9 gool iyo caawin dhammaan tartamada, 4 gool iyo 5 caawin. Arsenal waxay kaliya 20 gool laga dhaliyay Premier League 2751 daqiiqo oo Gabriel garoonka jooga, celcelis ahaan 1 gool 138 daqiiqo kasta. Dad badan lama yaabi doonaan inuu boos ka helay kooxda isku dhafka ah halka William Bargy aan ka soo qaadan lahayn, inkastoo xilli ciyaareed fiican oo la qaatay PSG. Difaaca bidixna Nuno Mendes, Hinkebe iyo sidoo kale Ricardo Calafiori waxay muujiyeen inay yihiin 2 ciyaaryahan oo aad u fiican oo difaaca bidixa Arsenal xilli ciyaareedkan, laakiin way adagtahay in la iska tiro horumarka Nuno Mendes kaasoo lagu tilmaami karo daafaca bidix ugu fiican ee maanta. Ciyaaryahanka 23 jirka ayaa heer cusub gaarsiiyay ciyaartiisa sanadihii ugu dambeeyay. Awoodiisa difaaca iyo weerarka waxay ka dhigan tahay ciyaaryahan aad u muuqda kooxda Enrique. 13 gool iyo caawin 40 kulan uu ciyaaray xilli ciyaareedkan, 6 gool iyo 7 caawin, waa tiro aad u fiican difaac bidix ahaan. Khadka dhexena waxaynu soo qaadanaynaa Joao Neves, saaxiibka Mendes Portugal. Joao Neves ayaa sidoo kale ku jira kooxda isku dhafka ah, wuxuuna 21 jir ahaan sii wadaa inuu noqdo xubin muhiim ah oo ka tirsan khadka dhexe ee PSG ee Luis Enrique, wuxuuna lagu yaqaanaa shaqo badan, faham xeeladeed iyo baas sax ah. Joao Neves waa ciyaaryahanka khadka dhexe oo wax
weyn ku kordhiya labada dhinac ee garoonka, wuxuuna sidoo kale khatar ku yahay kubadaha taagan inkastoo uu dhirar ahaan aad u yar yahay. Khadka dhexena waxaynu soo qaadanaynaa Vitinha, ciyaaryahanka saddexaad ee Portugal ee kooxda waa Vitinha, waxaa si la mid ah muhiim u yahay PSG, badanaana wuxuu noqdaa ciyaaryahan ka sameeya fursadaha isagoo ciyaaraya meel hoose oo khadka dhexe ama afarta difaac hortooda. 26 jirka laguma yaqaan dhalinta goolal badan, laakiin wuxuu 6 gool ka dhaliyay Champions League xilli ciyaareedkan oo ay ku jirto 3 lama filaan ah uu ka dhaliyay kooxda Tottenham wareegga League Phase-ka. Khadka dhexena waxaynu soo qaadanaynaa Declan Rice, Martin Odegaard, Eze, Matheus Zubimendi, Michael Merino, Maynard Lewis Skelly kuma jiraan kooxda isku dhafka ah, laakiin Declan Rice ayaa helay booska kadib xilli ciyaareed cajiib ah oo la qaatay Arsenal. Dad badan waxay u arkaan inuu yahay musharaxa Ballon d'Or-ka. Rice wuxuu ciyaari karaa daqiiqadaha ugu badan ciyaaryahan kasta oo khadka dhexe Arsenal xilli ciyaareedkan 4336 daqiiqo, isagoo dhaliyay 5 gool isla markaana bixiyay 11 caawin 54 kulan dhammaan tartamada. Wuxuuna sidoo kale lahaa baas sax ah oo gaaraya 92.2% oo kadib 663 baas oo Champions League ah. Garabka midigna waxaynu soo qaadanaynaa Bukayo Saka. Taageerayaasha Arsenal aad ay ula yaabi doonaan haddii Bukayo Saka laga saari lahaa kooxda isku dhafka ah. Xiddiga England waa ciyaaryahan saameyn weyn ku leh kooxda Arteta, wuxuuna sameeyay 20 gool iyo caawin 11 gool iyo 9 caawin 48 kulan xilli ciyaareedkan, inkastoo dhaawacyo soo gaareen mararka qaar. Saka oo dhaliyay goolkii guusha lugtii labaad ee semifinalka ee Atletico Madrid waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu horeeya ee lagu bilaabo marka uu caafimaad qabo, wuxuuna booska garabka midig kaga hormaray Desire Doué iyo Bradley Barcola oo PSG ah. weeraryahanka ama lambarka 9aadna waxaynu soo qaadanaynaa Ousmane Dembele. Victor Gyökeres kuma jiro kooxda isku dhafka sababtoo ah Ousmane Dembele ayaa sameeyay soo laabasho cajiib ah oo xirfadiisa PSG ah, isagoo noqday mid ka mid ah weeraryahanada dhexe ugu halista badan dunida kadib markii hore looga ciyaarin jiray garbaha. Ku guuleystaha Ballon d'Or-ka sanadkii 2025 iyo 2 jeer ciyaaryahanka ugu fiican Ligue 1-ka ayaa sameeyay 19 gool iyo 11 caawin xilli ciyaareedkan kooxda Enrique. Shan ka mid ah goolashaas waxay yimaadeen saddexdii kulan ee ugu dambeysay ee Champions League oo ay ku jiraan 3 gool semifinalka Bayern Munich. garabka bidixna waxaynu soo qaadanaynaa Kvaratskhelia waxa uu ahaa ciyaaryahan cajiib ah PSG xilli ciyaareedkan, gaar ahaan Champions League, isagoo dhaliyay 10 gool oo ah kuwa ugu badan ee kooxda isla markaana bixiyay 6 caawin 15 kulan. garabka Georgia xirfadaha badan ayaa muujiyay inuu yahay ciyaaryahan kulamada waaweyn lagu kalsoonaan karo kooxda Enrique, isagoo goolal kala dhaliyay wareegyada 16 sideedamaadka semifinalka iyo finalka ciyaareedka hore ee PSG 5-0 ku garaacay Inter Milan. Leandro Trossard iyo Gabriel Martinelli midkoodna ma awoodin inuu booska ka qaato lambarka 7 ee gaarka PSG. haddaba PSG iyo Arsenal kooxda ugu fiican waa goolkiibar Raya, Hakimi, Saliba, Gabriel Mendes, Neves, Vitinha, Rice, Saka, Dembele, Kvaratskhelia.